السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الجنال كان هاني ما أنا أدا لا بين جل سعتان بليس جنال كسبسكراس إنه صار هدي هذا هرن هو صارين أدي يدوم محسنتهين حتى نكسر هذا شكل إني كافية إيه أحمد قيبت دي أفراد qaybtii hore ee sheekadayna waxay inoo mareysay Axmed oo guddoonsiiyay Kaafiya warqadii oo ay Kaafiya akhrisay iyo Kaafiya oo dareentay farxad aad u badan oo ayna weligeed hore u dareemin ku soo dhawaada qaybta afraad ee sheekadayna inoo bilaabato Kaafiya markii ay akhrisay warqadii kadib waxa ay dareentay farxad aad u fara badan waxayna ku faraxday sida qiimaha leh iyo sharafta leh oo ugu qeexay dareenka jaceylka uu u qabo Axmed Kaafiya waxa ay tiri habeenkii wuxuu ahaa mid dheer wax hurdo ahna igama aysan soo dhicin saacadana waxa ay ahayd mid aanan dhaqaaqaynin waxaan dhararayay xilliga inta uu waaga ka bariyo si aan ula kulmo Axmed kolba waxaan eegayay saacada misna ma ahan mid socoto waxaadna moodaa inay taagan tahay halkeedii oo aynba dhaqaaqaynin saacadu waagii ayaa bariyay oo subax ayay noqotay waa anigii sugi lahaa inuu waagu bariyo waagii ayaa bariyay waxayna igu cadaatay talo waxaan garawaayay meesha aan wax ka bilaabi lahaa waayo Axmed wuxuu iga sugayaa jawaab waxaana garan lahayd sidii aan jawaabta ugu gudbin lahaa ma waji ayaan ugu sheegaa ma warqad ayaan ugu qoraa mise telefoon ayaan ka wacaa waxa igu cakirmatay taladii waxaan garan lahayd meel aan geeyo ama meel aan wax ka bilaabo anigoo isla hadal ku jira misna sariirteeda dul saaran ee aan wali sariirta ka soo kicin ayaa waxa albaabka soo gargaraacay walaasheedii waxayna ogeed walaashay xalay inaan yara xanuunsanaa oo madaxa ay xanuunayay oo aan anigu marmarsimo kaga dhigtay baaya ayaad i weydiisay haye sidee noqotay ma fiican tahay waxaan ugu jawaabay haa baaya ma fiicanahay waan soo kacay maalintaas waxa ul ah guriga kama qabanin maba haynin tabar aan wax ku qabto ama aan wax ku cuno toona waayo waxaan ahaa qof maqano jooga ah waxaan maskaxdeeda ka dhex guuxayay su'aalo fara badan oo ay maskaxdeeda iyo nafteeda isweydiinaysay waxa uu xaalku sida ahaadaba waxaa la gaaray xilligii galabtii waxaana imaaday Axmed sidii caadada noo ahaydna maanta maalmihii hore waa ay ka duwan tahay waayo Axmed wuxuu iga sugayaa jawaab anigana waxaan ahay qof labalabaynaysa waxaanan isweydiinayaa talow ma u sheegaa inaan aniga sida uu ii jecel yahay aan u jecelahay si ka badan mar horena aan jeclaa Axmed mise waan ka qariyaa oo waxaan ka dhigaa qof aqbasho jecelkiisa mise waxaan dhahaa talow waan ka soo fikirayaa Axmed oo waxay ugu noqotay kadis sidii anigoo isla hadlaya ayaa albaabka la ii soo gargaraacay wuxuuna ahaa Axmed waan istaagay oo waxaan u keenay shaah isbariidin kadib qof walba qofka kale ayuu hadal ka sugayay waxaan ku jirnay muddo dhowr daqiiqo ah aamusnaan hal mar ayaan wada damacnay inuu qof walba hadlo oo mar ayaan wada hadalnay waan qoslay asigana wuu qoslay oo wuxuu dhahay haye hadal markaas ayaan dhahay hadal adiga wuxuuna weydiiyay haye Kaafiya maxaa wax jawaab aad ii haysaa taladii ayaa igu cadaatay waxaan ku qasbanaaday inaan u jawaabo sida ay doontaba ha noqotee naf ayaan isgeliyay waxaan ku dhahay ayay tiri Kaafiya okay Axmed waan ku soo dhaweynayaa waxa tahay qof wanaagsan mana jiro wiil adiga ka wanaagsan oo aan xiriir la sameyn lahaa waayo waxa tahay wiilka dunida ugu akhlaaqda badan ugu wanaagsan saaxiibka ugu wanaagsan waxaan dareemayaa inaad tahay qoftii aan nafteyda ku aamini lahaa waan ku soo dhaweynayaa Axmed gacmo furan ku soo dhawow ayaan ku dhahay waliba anigoo sida uu ii jecel yahay ka badan inaan u jecelahay dareemaya haddana xishoodka dumar ayaan shalay ku qarsaday aan maantana awoodi waayay inaan ugu soo bandhigto aan iraahdo Axmed aniga ayaaba ka daran aad iyo aad ayaan ku jecelahay anigoo sidaas qalbiga ka dhaxaya ayaan afkana ugu jawaabay okay Axmed waan ku soo dhaweynayaa dareenku wuxuu ahaa mid farxad badan waan wada sheekeysanay wax yar oo waxa noqonay sida dad hadda isbartay oo kale qof walbana qofka kale aad ayuu uga xishoonayay waxayna aheeday markaasi sheeko xaalad iska cakiran waayo qof walba kuma dhiiran karin waxaan garan lahayn meesha aad sheekada ka bilaabi lahayn xoogaa kadib waan ismaac salaameeyay Axmedna wuxuu aaday xaafadiisii anigana waxaan ku haray gurigeygii waxay aheeday habeenada ka qurux badan waxayna aheeday habeen farxad badan waan wada sheekeysanay telefoon ayaan iska soo wacnay habeenkii oo dhan waxaan ahayn dad telefoon ku sheekeysanaya waxaana moodaa inaan noqonay laba qof wada hadda isbartay oo kaleeto waxaana inoo balawada maalmo qurux badan waxay xaaladdu sidaas ahaataba aan wada socono jaceylkeen inuu u noqdo mid walba laga ogaado oo ay walaashay iyo dumaashiga isku keen ogaadaan iyo dadka dariskaba
xaalku wuxuu sida ahaadaba walaashay waa ay dhashay kabacdi markii ay umusha ka baxdayna iyada iyo dumaashigay ayaa go'aan waxay ku gaareen inay dalka ka tagaan ay aadaan halkaas iyo dalka Kenya oo uu dumaashi shaqo ka helay waxayna noqotay shaqadiisii halkan inuu ku wareejiyo Axmed oo ay marka horeba ahaayeen shirko abaaya ayaa ii timiday waxayna ii soo bandhigtay inay baxayaan iyada iyo dumaashigay iyo waliba cunugooda aynan awoodin inaan aniga hadda raaco balse ay ii diri doonto hooyo iyo dhankii iyo baadiyihii oo aan halkaas dib ugu laaban doono marka ay ayaga dagaana ay dib ii soo wici doonto oo aan ka daba tagi doono hadduu Ilaahay ka raali noqdo tala ayaa igu cakirbatay kama fikiraynin aniga naqashada aan noqon doono iyo hooyada iyo walaalahay aan u tagi doono iyo aabahay balse waxaan ka fikirayay halkan jacaylkayga yaalo iyo sida aan uga tagi doono waxaan ku marmarsimooday waxbarashadeeda waxaan ku dhahay abaaya aniga dib uguma laabanayo baadiyo waayo aniga waxa baranaya iskuulkaygana meel fiican ayuu ii maraya mana rabo inaan waxbarashadeeda beerdareeyo waxaan rabaa inaan halkan joogo waxaan u soo jeediyay inaan la joogi doono cid qaraabo nahay oo magaalada degan oo waliba isku fiican yihiin aabe iyo familka waxayna igu tiri waxaan weydiinayaa hooyo iyo aabe inaan kugu aamini karo oo aan kaaga tagi karo iyo in kaleeto haday hooyo iyo aabe diidaan waxay noqonaysaa inaad dib ugu noqon doontid baadiyihii ayay igu tiri waayahay ayaan dhahay abaayo aniga oo hoos ka duceysanaya Axmed ayaan wacay waxaanan u sheegay arinta halka ay mareysay iyo walaashay inay igu tiri inaan baadiyo u laabto waa uu naxay wuxuuna yiri dib ma lahan waan xalinaynaa haddii ay ka fursan weysana reerka ayaan ka soo doonayaa waanan isguursan doonaa ayuu igu yiri Axmed qalbiga ayuu ii dejiyay markuu ila sheekaystay sidii ayaan ku kala tagnay abaayo ayaa la hadashay familkii iyo aabo waxaana la isku afgartay inaan la joogo reerkii qaraabada aan ahaynay oo aan waxbarashadeeda halkaas ka sii wato farxadeeda waxay ahayd mid aanan la soo koobi karin abaayo iyo waa ay baxeen waa inay safreen maalmo kadib waxay aadeen halka iyo dalkaasi ee Kenya anigana waxaan u guuray deriskii ama qaraabadii cid aan qaraabada ahayn gurigoodii sidaas ayaan u wada kulmi jirnay aniga iyo Axmed sideenii hore waxaana uu noqday Axmed mid mashquul badan waxaana ku soo siyaaday shirkadii ay shirkada ku ahaayeen asaga iyo dumaashigay wuxuuna noqday mid asiga kaligiis ah wuxuuna aadi jiray bil walba safar Axmed markii dambena waxa uu soo baxay inay mashruuc meel ay ka sameynayaan gobolada wuxuuna ku maqnaanayay muddo 3 bilood ayuu halkaas jiriyay gobolka uu Axmed ku maqnaay oo mashruuca ka sameynayna ma uusan ahayn gobol telefoon iyo isgaarsiin doona leh waxa jiray wax la yiraahdo taarkana ma uusan ahayn wax aan ku wada sheekeysan karno ama arrimo qaas uga hadli karno Axmed wuxuu ii soo diri jiray bashqad warqada ayaan ku wada sheekeysan jirnay asbuuc walbana waxa ay ma jiray gaari gobolkaasi ka socdo wuxuu iigu soo dhiibi jiray warqad anigana sidoo kale asbuuca dambe ayaan u dhiibi jiray warqad sidaas ayaan ku wada sheekeysan jirnay aniga asaga asbuucii ugu dambeeyay uu Axmed soo laaban rabay waxa uu soo diray bashqad wuxuuna ii sheegay markuu uu soo laabto inaan arinteena soo gabagabeyn doono oo reerka iga soo dooni doono balse arinta uma aysan dhicin sida aan u qorsheysanay oo murugadii sheekada halkan ayay ka bilaaban doontaa ayay tiri Kaafiya la soco qaybta shanaad ee sheekadeena iyo asbuuca dambe please subscribe noo saar lana wadaag asxaabtada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina